kulankan oo ay ka soo qayb galeen maamulka degmada Warshiiq haweenka degmada odayaasha dhaqanka ee degmada Warshiiq iyo bulshada qaybadeeda kala duwan ayaa waxa looga dooday dhibaatooyin muddooyinkii u dambeeyay soo food saaray degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe taasi oo ay sheegeen in maamulka gobolka ay weli ka sugayaan doorkii ay kaga lahaayeen horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha amniga iyo arrimaha bulshada waxayna dalbadeen in dib u dhis loogu sameeyo wadada isku xirta Muqdisho iyo degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo ay ka jiraan caqabado ku aadan marista wadada oo bacaad gooyay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada Warshiiq ayaa ka hadlay dhibaatooyinka degmada haysta xilligan waxa jiro awgeer amaan darro iyo waxa jiro dhaqaale xumo waxaan leenahay dawladda Hirshabeelle oo dhista maamulkan waxaan leenahay maamulkaas ha socodiso meelihii la rabay iyo wuxuu mudnaa gaarsiiso waxaan leenahay hadii ay dhacdo amni xumo dhaqaale xumo hadii dhacdo amni xumona waa dhaca dadkii hadii aan deegaanka maamulka aan waxnay waxay yireen annaga dhaqaale ma lihin beriyahan horta marka ugu horeysa roobka waa nagu yar yahay xeebta waa abaar jidkana waa xun yahay nabadgelyada waa xumaatay isbaaraha waa isu muuqmuuqda waa yaabnay odayaal dhaqameedeen waa isu nimid degmada nimid maamulka degmada u nimid oo dhisanay war waxaan idin dhisna waxaan ma ahaynine hay tahay isbaaradan iyo dhaqan xumadan oo ka socda degmada ka jirta waxay yiraahdeen dhaqaalaan wax ku dhaqaajina ma hayno ciidan ma hayno dhaqaalaan wax ku dhaqaajina ma hayno alxamdulilaahi rabbil caalamiin saasana qaar ka mid ah haweenkii ka hadlay goobta ayaa sheegay in degmadu aysan haysan adeegyada aasaasiga ah bulshada sida goobo caafimaad waxbarasho tayo leh iyo biyaha oo aad u liita waxayna ka dalbadeen dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedka Hirshabeelle inay u soo gurmadaan bulshada ku nool degmada Warshiiq ayna ka shaqeeyaan horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha degmada Warshiiq binta cali maxamuud aleedaha ishaag waxaa jirto hooyooyinka waa dhibaataysan yihiin iyo ilmaha yararka ah wax hooyada iyo dhallaanka oo isbitaalka fiican ama buuxiyo caafimaadkooda caafimaad dhammaystiran ma haysano hooyooyinka dhiigbaxa ku dhaca qaar waa maaragta ku dhimahayaan baabuur gurmada ma haysano isbitaal oo loo dhan yahay oo dhammaystiran ma qabno baahida degmada ugu ka jirto oo ugu horeyso waa isbitaal la'aan oon lahaynin wax qabad waa qabnaa isbitaallo dhisan laakiin qof oo ku dhaqaaqdo oo wax ka qabato ma joogan wax oo dhaqaatiir ah aniga hadda kula hadlaayo dhowr canuga iga jir laba canuga iga jiran meel aan dhiig uga qaado ma haysto isbitaal in la hoos tago daawona siinaya ma leh ii sheeg wax oo biriga hadii si ay noqoto gaari in la qaado la rooro qofkan gargaar loo suubinayo ma leh Muuse Cusmaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.